wasiirka xafiiska maareynta masiibooyinka iyo qataraha mudane Cabdullaahi Cabdi Aadan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xaalada abaareed ay ka jiraan gobolada kala duwan ee deegaanka. waxa uu sheegay in abaarahaas ay saameyn ay ku yeesheen dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaanadan ay abaarahan ay ka taagan yihiin. soo socotaan deegaanka waxa ka jira abaartaas oo ka dhalatay roobabkii guga oo aan meelaha qaarkood gobolada qaarkood si fiican uga diin ama ku yaraa iyo guud ahaan roobabkii dhici jiray xilli roobaadyada guga iyo dayrta ka horeysayba oo runtii deegaamo badan oo deegaan ka mid ah aan ka diin ama ku yarayd. taa waxay keentay in maadaama roob yaraantii gobolada qaarkood ka jirtay guga iyo shilaalkii ka horeeyayba in roobkii in uu yaraado daaqii iyo biyihii taasoo keentay saameyn dhanka xoolaha iyo dadka ah. marka waxaa ka jirta deegaanka abaar xagga biyo la'aanta ah iyo daaq la'aan dhanka xoolaha ah. dadka ku dhaqan deegaanka maadaama inta badan dad xoolo dhaqata ay noloshooda waxay ku xidhan tahay waa xoolo isla markaana xoolaha haddii markaas ay waayaan daaq ku filan ama biyo waxay keentaa in noloshooda saameyso. waana wax soo jireen oo deegaanka ka soo jiray oo ahayd dhibaato soo jireena oo garanaysaa ay la tacalluqda habnololeedka bulshada ku dhaqan deegaanka iyo agroecology-ga ama cimilada dhanka roobabka saameynta ay leeyihiin. marka 12 gobolba kulli way kala daran yihiin laakiin abaar baa jirta. marka laga reebo gobolada City iyo Faafan oo guga karamtiga hela 9 gobol kale ee hela dayrta abaar baa ka jirta. waxaad arkaysaa hayaan dhanka xoolo dhaqatada oo hayaamayaan meelaha isleeyihiin daaq iyo biyo ka heli kartaan sida gobolada Jarar oo kale oo aad arkayso xoolo dhaqatada ku dhaqanay Shabeelle iyo Qorraxay inay xaggaas u wareegeen oo runtii roobab yar ay ka da'een isla markaana taana waxay keentay xaaluf xagga daaqii ah. marka abaartaas oo runtii aan dhihi karo waa mid inta badan la tacalluqda nugulaanshaha habnololeedka bulshada xoolo dhaqatada ee deegaanka maadaama ay noloshooda ku xidhan tahay xoolihiina ay mar walba u baahan yihiin daaq iyo biyo oo ah ku xidhan roobabka ka da'aya xilliga guga iyo dayrta. haddii roobabkaas ay yaraadaan ama si loo baahnaysan u diin waxaa inta badan dhacda inay noloshii shacabka saameyso. wasiirka ayaa sidoo kale xuseynay haatan ay dowladdu ay u diyaargarowday sida ay ugu gurma lahaayeen dadka abaarahaas ay saameeyeen isla mar ahaantaasna haatan ay socdaan sida uu xusay dadaalo biyo dhaamin ah oo loogu gurmanayo dadka abaarahaas ay saameynta ku yeesheen. marka xilligan xayrka maadaama ay abaaraha jiraan gaar ahaan 9 gobol waxaan xafiis ahaan qorsheynay in biyo dhaamin degdega laga bilaabo ilaa 49 degmo oo degmadiiba markaas loo dhaaminayo bil biyo dhaamin halbooyada maadaama awood ahaan iyo magaranaysa miisaaniyad ahaan aanan awoodin wax intaa ka badan. waxaan xafiis ahaan qorsheynay in biyo dhaamintaas la bilaabo oo si magaranaysa ay dadkii loo gaarsiiyo biyo oo iyadana aan maalmahan aan bilaabayno insha Allah taala bil biyo dhaamina. waxaan rajaynayaa bisha kadib in Ilaahay raxmadii keeno oo roob doo haddii markaas raxmada dib inooga dhacdan waxay noqon xukuumad ahaan inaan dib isku noqono oo la balaaran la galo oo dadka lagu badbaadinayo. waxaa iyadana aan sameynay caws ma garanaysaa cawskii yaalay gobolka Shabeelle iyo Qorraxay in la qaybiyo oo la siiyo xoolo dhaqatada. taasina ma garanaysaa waa iyadana waa qaybinteedan ku jiraa oo degmooyinkii inay hawsaskaas ay qaybiyaan ay wadaan. marka guud ahaan tallaabooyinkaas aan qaadnay waxaa kaloo lagu jiraa qorshihii ka jawaabista ma garanaysaa saameynta abaaraha ama qorshahan loo yaqaano emergency preparedness and response plan kaana waan dhammaystiray inta badan xafiisyada wada tashi inaan sameyno kadibna aan jawaab celin degdeg ka bixino. marka waxaan ka codsanayaa bulshada ku dhaqan deegaanka in ay iscaawiyaan in xaaladda hadda maanta aynu ku jirro qofkii Ilaahay wax siiyey walaalkiisa kale dhibaataysan uu gacan ka geysto caawiyo. dadaaladani biyo dhaaminta ayaa laga fuli doonaa gobolada kala duwan ee deegaanka waxaana ka faa'iideysan doona kumanaan qoys oo ku dhaqan deegaanada ay abaarahan ay ka taagan yihiin. Cabdiraxmaan Maxamed Muuse, Cabdiraxmaan Ilka Case, SRTV magaalada Goday.